Gabadhan aad aragtaan sodogeeda ayay 7 jeer kufsatay ilaa uu ka geeriyoodo. Gabar lagu magacaabo Nahiid ayaa kufsi 7 jeer ah u geysatay sodogeeda oo lagu magacaabo Gulaam Xasan kadib markii ninkii qabay ayada ee Bilaal Xasan uu safar u baxay. Bilaal Xasan ayaa aabihiis oo 80 jir ah ugu tagay xaaskiisa Nahiid si ay u xanaaneyso asna safar shaqo ayuu aaday. Balse gabadhii ayaa sodogii kufsi u geysatay ilaa uu ka geeriyoodo. Geeridiisa ayaa markii hore loo maleynaya wadno qabad inay tahay balse markii la baaray sababta uu u dhintay ayaa la ogaaday inay tahay biyo bax badan oo isxigxigay kuwaasoo sababa in jirka duqa qalalo. Nahiid oo markii dambe gacanta lagu soo dhigay haatan saldhigga ku xiran ayaana qiratay arrintaas waxayna sheegtay in ninkeeda uusan baahiyadeeda jinsiga xaqabtiri karin sida awgeed sodogeeda ugu doorbiday. Nahiid ayaana haatan ku eedeysan dil iyo kufsi balse waxay sheegtay inaysan dil ugu talagelin kaliya ay doonayso inay duqa la raaxaysato. Nahiid ayaa haatan weli xabsi ku jirto waxayna sugaysaa in kiiskeeda maxkamadda la horgeeyo si loo xukumo. Kiiskan waxay kasoo kordha barnaamijyadeen dambe ayaad kula socon doontaan.